Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka aad u fiirsatid abuurta Ilaahay ee ku nool koonkan ayaa mar waliba waxayna tusaysaa awoodda Ilaahay iyo xigmadihiisa. Haddaba maanta ayaa barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa arrimo ku saabsan geedaha iyo sida ay u shaqeeyaan. Marka hore su'aal sheeg labadan wiil waxa ay timahoodii kor ugu taagan yihiin. Haddii aan mar labaad kuugu celiyo haddaba sheeg waxa ay labadan wiil timahoodu kor ugu taagan yihiin. Haddaba jawaabta oo dhammaystiran waxa ay tahay waxaa ku soo socday korkooda hanqar ama biriq taasoo ka samaysan electromagnetic. Taasi ayaa soo jiidanaysa waxay dhulka yaalla iyo waxa u dhow waxayna soo jiiday timahooda. Taasi waa sababta. Su'aasha labaad, mar haddii aad doonaysid inaad ogaatid in ukun ay fuuntooday ama ay hallowday mise inay fiican tahay waxaad ku kala ogaanaysaa. Kow waxaad soo qaadanaysaa kuweyl kadib waxaad ku ridaysaa ukunta. Haddii ay fiyoodahay waa ay degaysaa oo way ku jirtaa wixii laga rabay, balse haddii ay dul sabayso biyaha waa ay fuuntooday mise waa ay hallowday oo lama isticmaali karo.